waa marwadan ku fikirayay oo fursad fiican ku helay mana furayo gabadhan aad arkaysaan waxa la yiraahdaa Saara Qosol Wanaag wiilkana waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan waa dad asxaab ah oo TikToker ah oo inta badan soo gala live-ka habeenkii deetana halka ku kaftama iskuna challenge gareeya ninkan Cabdiraxmaan waxay muddo badan gabadhani isku haysteen nin la yiraahdo Omar Barbar waxa dhacday in Saara iyo Cabdiraxmaan ay live soo wada koraan deetana Cabdiraxmaan uu yiraahdo Saara waan mehersanaya ama waan ku mehersanaya ee meherkaaga sheeg magacaagana sheeg sidoo kale shiiqii ii ka meherin lahaa waa kan oo waa uu joogaa oo waa meerinaya Saara ayaa sheegtay magac saddexan qadarkiisa wuxuu noqdaba waxay sheegatay meher oo waxay tiri meherkaygu waa inta sidoo kale meeshu waxa joogay nin wadaad ah oranayo halkan waxa ka dhacayo meher intaan oo qof oo dad oo live ku jirtana waxay ka yihiin marqaati sida darteed labadan qof maanta waa la isku meherinaya waxba la macjilay marka wixii ka dambeeyayna Cabdiraxmaan wuxuu yiri Saara waa xaaskaygi oo aniga ayaa qabo mana furayo daarnaysa waa qaba waxaaskaygi فرماي waxay noqotay hadalhayn aad u tiro badan barta TikTok Cabdiraxmaan wuxuu yiri Saara waa xaaskaygi oo aniga ayaa qaba wixii habeenka ka bilowday dad badan ayaa ka codsanaya Cabdiraxmaan oo gabadha iska fur dad kalena waxay lahaayeen gabadha adigu ma qabtid waa tahay hadaba adiga aan ku weydiiyay Cabdiraxmaan gabadha miyay ku mehersan tahay mise kuma mehersano hadaba markuu meher dhacayo maxaa loo baahan yahay maxay tahay ahkaanta iyo shuruudda uu leeyahay meherku ahkaanta iyo shuruudda meherku uu leeyahay waxay tahay 5 qodob ayay ka kooban tahay ahkaanta meherku 5 qodob kamid ah hadii la waayo meherka ansax ma ahan hadii laakiin 5 qodob oo kaamil oo buuxda meherka waxa weeye waa kaamil waa tahay hadaba maxay tahay qodobka koowaad waxa weeye waa in la helo zawj ama nin in la helo weeye gabadha mehersanayo nin in la helo waa shuruudda ama qodobka koowaad weeye qodobka labaad maxaa weeye qodobka labaad waxa weeye gabar ama zawja in la helo weeye qodobka labaadna qodobka saddexaad waxa weeye weli in la helo weli weeye weliga maxaa weeye weligu waa qofka gabadha mas'uulka ka ah ee bixinaya ee mas'uuliyadda leh weeye qofka gabadha bixinaya weeye haduu aabaheed noqon lahaa ama walaalkeed ama awowgeed qofku ugu dhow yahay ayuu weli u yahay shuruudda afaraad waxa weeye in la helo laba qof oo marqaati ah shuruudda shanaad ee ugu dambayso waxa weeye in la helo siiqo meelaha siiqadii wax loo meherin lahaa siiqa in la helo weeye 5 qodob mid kamid ah hadii la waayo meherka ma ahan ansax hadaba aynu laabana wiilkan iyo gabadhan isku dhagan maxaa sax ka maxaana sax ka ahayn shuruudahan maxay buuxiyeen maxaase ka maqnaa kow zawj in la helo way buuxiyeen oo Cabdiraxmaan wuu joogay 2 zawja in la helo way buuxiyeen oo Saara way joogtay 3 weli in la helo weli ma la helay mise lama helin maya shuruuda bataatanba way maqneed gabadha hadii ay weli laan tahayna meherkeedu nabiga calayhi salaatu salaam ayaa noo sheegay gabadhii weli la'aan la meheriyo inuu nikaaxeeda baadil yahay oo waxba uusan ka jirin qodobka meesha uu ka maqnaa qodob afaraad waxa weeye marqaati laba qof oo marqaati ah marqaatinimo u yimi ma joogeen meesha mise ma aysan joogin ma joogin weeyaduna qodobkaana sidoo kale meesha uu ka maqnaa oo way jabiyeen qodobka ugu dambeeya ee ah siiqada wax loo meheriyay ayaduna way qaldaneed oo si siiqada sax wax loo meherin jiray looma meherin 3 qodob oo kamid ah ahkaanta meherka ayaa ka maqnaa meesha sida darteed waxba kama jiraan weeye meherka mana ahan meher sax oo ay wax ka jiraan dad badan oo waxaan arkayay Cabdiraxmaan ku dhagan oo oranayo war gabadha iska fur gabadha maskiinta waad khayaantay Cabdiraxmaan gabadha uma mehersano halka wax meher ah oo ka dhacay ma jiraan Cabdiraxmaan gabadha uma mehersana marwana uma ahan bal adiguna faalada iyo comment-iga noogu soo qor inta aqoontaada cilmigaaga uu gaarsiisan yahay gabadha wiilka miyay ku mehersan tahay mise kuma mehersano